وعن داوديالي دلكيمبا ميرول بان نغا داوانيسان halkan waa page-kayga Facebook aan ku leeyahay Faadimo Cabduqaadir kusoo dhawaada inta badanna sheekooyin iyo waxyaabo kale oo dhanka arrimaha siyaasadda ayaad aad halkan ugala socotaan qeybaha markaasi inaan idin keenana kama daaleyno dadka faniga saaxiibka u ah ama dadka baraha bulshada caanka ee aadka looga yaqaano waxay la fadhiya oo aan rabaa bal in noloshiisa aan wax badan ka ogaano iyo sababta uu heerkan ku soo gaaray iyo cidda garabka ku siisay iyo qofka uu yahayba shakhsiyadiisa inaan ku ogaano laakiin magaciisa rasmiga ah qofkaas uu yahay Liibaan Axmed Yaasiin Soomaalidu uma taqaan Liibaan Axmed Yaasiin wuxuu u taqaanaa Baaquli Boy si kala hadaan u dhahana aabaha brangiyada inta badan markaad fiiriso wadooyinka halbowlaha waa caasimada Muqdisho ku sameynaya brangiya aysan dadka kale ku dhiiran karin ama wali aysan ku dhiiranba marka Liibaan Axmed Yaasiin raba Baaquli Boy naanistiisa waaye inaan marka hore soo dhaweeyo oo soo dhawow page-kayga ku soo dhawow saaxiib Faadimo waa ku dhawahay anina sharaf gooniga ay tahay maanta adigoo wariyaasha ugu saray dalka kamid ah inaad barnaamijka markaa Jaanis fursad aad ugu siiso oo maasanta aad u dhawahay walaashada qaaliga waa tahay Liibaan Axmed Yaasiin oo magacaaga Liibaan Maxamed Yaasiin Liibaan Maxamed Yaasiin aan dhahay afwan magacaaga waxa waaye hooyo abay kula baxeen waa sax Baaquli Boy yaa keenay Faadimo Baaquli Boy hadda barnaamijkan ka diyaar ah wiilka liiraa Baaquli wiil xaafadii la degan la yiraahdo hay oo inta badan iskaftan badan yahay horta magacaas barnaamij la yiraahdo gafankan ku keenay hay Baaquli ninkaas markaa waa isdhibna inta badan magaciisa sidaas oo la baxay Boy marka Axmed Taal macalinka jeeyaha ku diray Baaquli Boy waxa yar caadi la yiraahdo asan oo kamid aha magacaas dhaqfooda soo tagtaaday ma la bixiyo Baaquli Boy kaftanka ku bixina inuu dhawaada ogaalaayna magac kala raasalahay kaftankaas muxuu ahaa marka waxa barnaamij waxa socday idaacadaha magaalada ka socday Got Talent oo dadkii wadooda fanaaniinta ku soo bandhigayeen niman dhalinyaro ani marka habeenan daawanay marka dhinac kala sheekad u rogay halaaga fanka barnaamij leeyahay oo aan leeyahay xariifaata lagu xamaay xaafadeen xaasanida xaawa calima ku dhashay xaasanida xamar bilan ku dhawato xamar bilan ta xaalan siiyo marka barnaamij ka beeran tira isku aadistay marka qaatim isteeda matalay sidii ku baxay erayas Baaquli Boy oo sidaas u qiimaade marka waxaan rabnaa ani daawadayaasha inaan noo sheegtid waa kuma Baaquli Boy marka horta Faadimo horta Liibaan Maxamed Yaasiin la dhahaa ku dhashay gobolka Banaadir ku soo barbaaray ku wax bartay gobolka Banaadir waan ka baxay way jirtaa aniga wiil ciyaal xamar aan ah hay wax kala footballerna waa ahaan jiro waxaan ka ciyaaray Albadar ku xiliiraan waa ciyaaray gudoomiyaasha ciyaartooyda salaam halkan ka salaama ii suurtagal in Serie ciyaaro nin football marka dhankaasna waa ahay isku fanigana waan ahay welina kuma hamin YouTube ay maadon tartus ma dhihin laakiin waxaan isleeyahay nin noocaas ah saxaabada sidaas ku soo korta marka horeba waa tahay waxaan rabnaa sheekooyinka qofka noloshiisa asalka fanigana wax ka weydiino waa ka weydiin karnaa soomaa waa sax waa tahay maxaa ka jira horta inaad ahayd darawal BL ah balse dib isku soo rogay isku bedelay in bulshada ku qosol siiyo mooto bajaaj Faadimo ku salaamaya si kale ani mooto bajaaj la ahay darawal ahay hay BL horta ma soo noqon may mooto bajaaj ku shaqeeyay hay BL hawshiis karkar waa la sii bixi mootada ku bixinay waxyaabihii dabeecadda xataa inta badan waa iska dabeecad qalafsanaa jiray dadka labada asal shaba is dhihi jiray mootada waxyaabaha oo ilaahay uma mahad celina laakiin dabeecada ay bartay hay dhowr dagaal galay saldhigyada magaalada qof mid aan lagu xirin ma laha markii dambe waxaa nabad qaato wax ka qiimo badan ma laha mootada lixsan xoogaa aan waday alxamdulillah mootada waxay iga saashan inaan magac yeeshan ayaa iga saashay ani rijaal markaan bilaabeyna dad wax haystaman ahayn ana mootola ah rijaal ciyaalka xaafadda iska ah xaafadda joogo waxaan sameey jiray salaad subaxdii ka jiro wallahi been kuma sheegay markaan ka 3 saac soo kala wareega mana sanay rijaal aan soo qaaday cameramanka laamiya istaagayna waxa burbursan karaan burbursanaya hadii la burbursan karo waa soo baxa anu daalana guri imaana haddaan jiifto hooyaan la mootada iska lahayd lacag yarta hooyaday $10 banaanka waa mootada biilkan waa laga rabaa ma seexanay haddana biyo isku shuba fresh iska dhigay haddana ma bixi jiray habeenkii ilaa 3 saac iska shaqay jiray aniga oo soo dhibtooda YouTube bay kuma sheegay ana oo soo rafaado no horta waxaan aragnaa dad badan oo caanimo raadiya oo ka dawareega caanimada si kasta ay ma godka laga shaba ka daba gala waxaan rabnaa bal si basiid ama sidee noqoto inaan noogu sharaxdo qaabka caan lagu noqdo horta Faadimo horta waxaan wax ilaahay wato waay haduu ilaahay kugu talagalay aan noqoto waa noqonay hadda noqon adoo kugu talagalay noqonays laakiin anaga wali isma YouTube adoobay
oo baraha bulshada wejiga inta la geela daawana weliga isma dhihin laakiin waxaa iska ahayn dhalinyarada reer dhiigle marka isu nimaano ani axmed taala inta badan dadku u sheekay jirnay ka qosol sii jirnay yar la yiraahdo maxamed carab waan ka salaamayaa saaxiibka qaaliga adiga youtube ku baahan maalintaas wax hadalkiisu u taabtay youtube anoo sida ku haya rijaal furay waxaa dhacday horta maadaama ay weydiiso si aan lagu noqon karaa fudeeda ay tiri mugtahay horta waxaa aan lagu noqon karaa inta badan dadku hadda waxaa sameysay ganacsiga sameysay dukaan haddaad maalin xirtid maalin furtid macaamiisha waa sii luminaya haddaad tiktoker tahay laakiin haddaad maalinba dadka video soo bandhigto ada ultimo qofka waxaan isleeyahay sanad markaa uu kusoo gabagabeyn karaa inuu magac sameeyo laakiin waxaa muhiim ah marka hore targetkaaga inuu magac ahaado laakiin haddaad magac oo lacag ka sameeyda istira weligaa ma noqonaysa iyo dadaal inaad samayso waa tahay waxaan marqaati ka nahay oon baraha bulshada ku arkeyna barangeelaya ablaha soo bandhigaysay oo adba qof ama eriwad ama baata qof u geli ama gawaarida beelada agtooda aan kuga aragno barangeeladaasi sidee kugu suurta gashay inaad wadooyinka muqdisho kusoo bandhigto faadamoy sideeda wax barangi haddii lagu yidhaha qola lagu sameeyo horta feeg waayo inta badan qof lagu sameynaa wuu ag fadhiya xaqiiq waayo taas baranki waxay noogu suurta gashay wadanka xaaladiisa waa iska xuntaha waa ka warqabtaa maalinba maalinta kadambeysa laakiin waa soo wanaagsanaana intaas ka badanaa rajeynaa laakiin caqligaan ku dari jirna faadumay tusaale hadda adi waxaad degan tahay bulxoobi aad degan tahay kow faaduma inaan helno muhiim waayo faaduma markaan helno mootadii aan dhex fadhiisanayna ayadii kaameramanka faaduma ani dhinaca albaabka xigtaan istaagaa faaduma marka ayadii way hagay faadumo marshibiyadiga adi 100 tilaabo 50 tilaabo qof marka socod ninkaas maxamed aan lahaa profilkan oo akhrinay ciidan maaha saas maaha ana isla markaa waan dhaqaaqaa ninkii toosan noo soo dhawaan dadka taargadaas looga dhigi jiray saas u sameeyay aqligaas ku dari jirnay waayo dadka waa la hubeysan waa ka warqabtaa qof xaaladiisa iska baraga dhaxa xalay dhafraa daarto dhabdhahe qof meel waxgay marka waxyaabo badan iska ilaali jirnay waa tahay waxaan rabaa inaad ii sheegtid kuwa aad jilaysa ma jiraan waxyaabo khatar kaa soo gaaray ama kuwii kugu la yaabka badnaa ee saameyntan kugu yeeshay barangidaasi minaysa maxaa kamid ahaa faaduma waxaa kamid ah bilaawi barangida markaan bilaaweyna barankiisa la sameeyaa un baa niyada anaga iska dhaadhicinay waxaan xasuustaa laba diibo waan geli rabay ani nin dhalinyara oo jaamacadaha soomaaliya kamid ah waxaan sameynay marka waagii hore oole aan isku shubi jirnay barangigana waaliyan ka aaminsanay qofkana waali jira ka aaminsanay oole aan isku aadinayna marka baalaha oo shirkadaha korontada maaragtay aan isku aadinayna qofka inta badan soomaalida moogta stress ama xaalad guri waxba iska jiro qofka meesha maray ogba waa yaryahaabo qofka asoo mashquulsan ama waxbarasho qofka hoostiisaan kasoo tooseynaa qofku uu naxaya waxaan hastaa wiil dhalinyara oo maanta waan aqaanaa saaxiibkay waa aadan wada xiriirnaa inuu intuu igu naxay oo marshibiyadii inta ka talaabo baawur caasi oo hoos galay aan xasuustaa oo xataa baawurka barayka qabtay nin waxaan dhahnay san macquul maana rijaalow dad asxaaba oo jaamacada dhigto xaafadda nadigan isu yeernay oo barankii inaan sameyn waan rabnaaye dadka naftooda khataraan gelinona maxaa la sameeyaa kadib waxaan bilaabnay qofkii inaan keeno dircan soo qaban adhaano isku tijaabi qofku man argagaxayo laakiin wuu kula yaabaya kadib marka waxaan bilaabnay qofkii waxaan ka ordisinay inaan la nimaano waa tahay